Fletcher oo isbedel degdeg ah sameeyay ka hor kulankiisa ugu horeeyay ee United. Darren Fletcher oo ah tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United kadib ciyaarintii Ruben Amorim ayaa bixiyay tilmaamo muhiim ah oo ku saabsan qaabka uu u ciyaari doono kulanka caawa ee Burnley. Isagoo ka hadlayay shirka jaraa'id ee ka hor kulanka ka dhacaya Turf Moor caawa, Fletcher ayaa la weydiiyay haddii uu dib ugu laaban doono nidaamka 4 daafac maadaama Ruben Amorim uu isticmaali jiray 3 daafac. Fletcher ayaa hoosta ka xariiqay in nidaamka 4 daafac uu yahay midka rasmiga ah ee kooxda. Isagoo yiri, taas waa qaab dhismeedka kooxda. Markaad eegto taariikhda sida aan u soo dhisnay ciyaartooyda akademiyada ilaa heerka 18 jirada, 4 daafac ayaa ah saldhigga kooxda. Inkasta oo uusan si cad u shaacin shaxda ku soo bilaabanaysa, haddana hadalkiisu wuxuu muujiyay inuu doonayo inuu kooxda dib ugu soo celiyo qaab ciyaareedka ay u barteen, kaas oo ka duwan nidaamkii 3-4-3 ee Amorim oo lagu dhibtooday kulamadii u dambeeyay. Talaabadan ayaa loo arkaa mid Fletcher uu ku doonayo inuu ciyaartooyda ku siiyo kalsooni, maadaama qaar badan oo ka mid ah difaacyada kooxda ay ku dhibtoonayeen inay la qabsadaan nidaamka Amorim. Manchester United ayaa caawa raadinaysa guul muhiim ah si ay kor ugu soo kacdo kala horeynta horyaalka. Fletcher ayaana rajeynaya in isbedelka dhanka farsamada uu keeno natiijo degdeg ah ka hor inta aan la magacaabin tababare ku meel gaar ah oo cusub ama mid joogto ah. Dhinaca kale, dhaawac kale oo gilgilay Liverpool ka hor kulanka Arsenal. Tababaraha kooxda Liverpool Arne Slot ayaa xaqiijiyay in weeraryahanka reer France ee Hugo Ekitike uu shaki weyn ku jiro inuu safto kulanka habeen dambe ay u safri doonaan Arsenal. Ekitike oo ah goolaliyaha ugu sareeya Liverpool xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 12 gool ayaa ku dhibtoonaya dhaawac muruq ah, kaas oo u diiday inuu ka qayb galo ciyaartii Fulham ee ku dhamaatay 2-2 toddobaadkii hore. Slot oo ka hadlayay shirkiisa jaraa'id ee maanta oo Arbaca ah ayaa sheegay in ciyaaryahanka uusan weli ku soo laaban tababarka kooxda koowaad, ma uusan nala tababaran ilaa hadda. Aan aragno haddii uu awoodo, ayuu yiri Slot. Waxa ay ciyaaruhu isugu xigxigaan si toos ah, taas ayaana adkeynaysa inuu taam u noqdo kulanka Emirates. Maqnaanshaha suurtagalka ah ee Ekitike ayaa dhabarjab weyn ku ah Liverpool, maadaama kooxdu ay horay u weysay 2 ka mid ah xidigeeda ugu muhiimsan ee weerarka. Mohamed Salah waxa uu ku maqan yahay waajibaadka xulka qaranka Masar ee tartanka AFCON. Alexander Isak waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa dhowr bilood kadib markii uu dhaawac jab ah ka soo gaaray lugta. Haddii Ekitike uu seego kulankan, Arne Slot ayaa la filayaa inuu weerarka dhexe u adeegsado Cody Gakpo, isagoo ay garbaha ka caawin doonaan Florian Wirtz iyo Jeremy Frimpong. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka ahayd barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran, mahadsanid.